adoo adduunka magac iyo maalba ka sameeyay ayaa marmarka qaar waxa ku dhacay xanuun waxaana laga qabanayaa macaanka dunida. Buraak waxa uu ka mid ahaa dadka magac iyo maalkaba ka sameeyay dunida, laakiin maanta waxa uu ka mid yahay dadka la walaaloobay xanuunka waxana uu saaran yahay sariirta. magaciisu waa Buraak. waxa uu ka mid yahay ragga ugu caansan dhinaca cunto karinta caalamka. waa macquul inaad aragtay ama aad daawatay muuqaaladiisa. nin walba oo caanka dunida sida ciyaartooyda iyo fanaaniinta haddii aan soo arag hoteelka uu joogo ama cuntada uu kariyo Buraak waxay ka dhigan tahay Dubai inaanu arag qayb badan oo dalxiiska. Buraak da'diisu waa 26 sano. waana nin Turki ah oo haysta diinta Islaamka. waxa uu ku nool yahay magaalada dalxiiska ee Dubai. waana halka uu ku yeeshay magaca ugu weyn ee caalamka oo dhan uu bartay inuu yahay ninka ugu wanaagsan dhinaca cunto karinta. waa nin wejigiisu furan yahay, jecel mar walba inuu caawiyo carruurta, gaar ahaan carruurta Suuriya. Buraak bartiisa TikTok waxa ku xidhan in ka badan 46 milyan oo ruux, halka uu ka mid yahay dadka ugu caansan Instagram-ka. haddaba Buraak 6 casho ka hor waxa uu soo dhigay sawir Instagram-ka uu dusha kaga soo qoray haddii aad weydaan sawirkan igu xasuusta. dadka aadka ugu dhow Buraak waxay sheegeen in waxba laga qaban kari waayo xaaladiisa caafimaad oo ay macquul tahay in uu geeriyoodo xanuunka ku dhacay, laakiin isagu si toos ah uma sheegin xanuunka ku dhacay nooca uu yahay. Buraak indhoweydba waxa laga la'aa shaashadaha, waxaana la waayay farxadiisii iyo cuntadii uu samayn jiray. si walba maanta waxa uu ka mid yahay dadka xanuunsanaya. sawirka uu iska soo qaaday waxaad ka dareemaysaa in jirkiisu uu aad u tegay oo uu aad u xanuunsanayo.